horta gaboose mu eedeyn dawladii jise dawladihii jiray oo dhan wey waana kuwii xilalka kasoo hortay oo maxamed xaaji ibraahim cigaal muddo kooban buu xilka u hayay waa ninkii shaqla dhexe saddexda habeenimo warqada iligaa loo soo qoray dawladiisii iraanyana uu kasoo shaqeeyey isagoo murashaxa waxaan doonayo oole waa muxuu ahaa murashax baan noqonayaa buuna sii ahaa markii wixii uu qaadi karayay qaaday ayuu yidhi kolka xisbi waan furanayaa waan ka tegayaa wasaaradda arrimaha gudahuna markaa dhaqaalo badan baa ku socday gaboose wuxuu yidhi dadka waan xamili kari waaye sidii wax loo tasarufayey hoolashamadii socotay dadkii laisku dirayey gaboose intaa wuu joogay isagoo wasiirka arrimaha gudaha muddo yaroo kooban gaboose wuxuu ahaa ninkii keligii maxkamadda noqday markii dambena waa kii intuu iskaga tegay haddana shirib beeleedkii aabahasi ka qayb galay marka uu leeyahay reere ka hadlaayo beeleed buu ka qayb galay isaga wax xumaynayo ee kala fogeynaya kamid ahaa dhakhtarkiisu waa dhakhtar weyn dadka iska daadka muxuu aha faqiirka ah ka waxaysan qaadi karaynin lacagta uu ka qaado waxaa habboonay inuu naxariisto maantu gacanta ku haya weliba professionkiisa ay tahay ugu naxariisto muxuu ahaa fiigan uu ka qaadayo ee aanay cidina soo bedelin karin dhakhtarkiisa dadkii dayarta aanay ka yihin inta xanuunsanaysaana dayarta u badan tahay gaboose waxaan oran lahaa taa ka shaqee hadduu meel kala sheegayana meel dhibaata ka taagan tahay ma jirto haddaanu isagu abuureynin waan gartay wasiir wuxuu tilmaamay doctor gaboose in waddanka jabhada ka dilaaceen oo koono kasta jabhada ka dagaalamayaan arrintaa ka waran in la yidhaahdo wabarba habeen dhawteel la hadal hayay galbeedkana caawa iyo xalayba odayaashiisii iyo hadoorkiisi iyo salaadiintii oo dhan way degan tahay halku way ka hadleen waxay yidhahan qof baa tahay ama kusoo noqon reerkaagii ama muxuu ahaa dawladda etoobiya iyo muxuu ahaa dadkaan mujaarka nahayn waanu ka wada hadalnay inaan wax dhaqdhaqaaq iga gasho aanu ka iman hawl dhamaatay weeyaan taas jabhadda uu sheegaya dawaanka carooyn intaa uu maqlayo way kanuu hadal maalin keliya muu odhan waa qalab muxuu ahaa in jabhad dalka laga dhex abuuro maalin keliya muu odhan ma markii odayaashii iyo madaxweynihii iyo ay isu yimaadeen in la heshiiye hawshii la dhameeyey ee labadii reere walaalaha ahaa ee isfilaaya ay yidhaaheen hawsha iyadana anagaa dhamaystirayna hala madaayo ayuu ka hadlaya gaboose heshiiskoodana diidan yahay ma odayaashii yidhi inamadii waanu la soo noqonayna dhibaata ka jirto madaxweynihii wada hadleen ee nabad lagu kala tegay buu diidan yahay waa isweydiintay waa su-aal dhinaca kale wuxuu ku eedeeyey dawladda aad xubinta ka tahay amaba aad wasiirka ka tahay in doorashadii wixii ka dambeeyey dadkii kala qaybsamay oo ay ku guuldaraysatay dadkii in la mideeyo arrintaasi sideed u aragtaan xukuumad ahaan hadalkayga aban kugu darayo haldoorkii iyo garbaweynkii iyo salaadiintii iyo raggii doorkaa iyo madaxweynihii iyo dawladdu waa kuwii shaqay waa kuwii heshiiska cad ku kala tegay hawshaa iyada ah wax maanta ka noolo uu sii wadwadaa marka la heshiiyey dee lagama hadlo hawsha marka ay taagan tahay dhibaato ay taagan tahay raggii wax ka maleegayay ee muxuu ahaa ay tegay muxuu ahaa meesha la yidhaahdo gacan libaax ee lahaa 90 sano gabalaynan kursigaa fuulayna dadka kala fogeynayo daaha waxa maanta heshiisyaaba socda oo dhacay oo dhamaystir maanta u danqaya muxuu ahaa uga hadlayo anigu waxaan u arkayaa inuu arkay inay hawshaasi dhamaatay midda labaad waa koox uu leeyahay madaxweyne haddana uga talinayo anigu kooxda dee maan fahmin inuu doonayo u sheegayo xisbi qaran oo tartamaydu kasoo baxay ummadda maanta ku doortay iyo ku aan dooranaysa oo madaxweyne ah waa la wada joogaa xisbiyadu way wada joogaan halkan isagu ka dilaacinayo uu ka eedeynayo kooxda ka dhigayo anigu maan gara 3 xisbi waa dalka ka jira gaboose dee wadani baan ku owey wadanina dalkuu joogaayo waa la iskarayn karaa laakiin kumay hadal bee languageka uu gaboose ku hadlayo intaa maa dhakhtarkiisa dhex fadhiyo dadka lacagta badan ka qaadayo su-aasheeda ugu dambaysa dabcan doctor gaboose wuxuu la mid yahay muwaadiniin badan oo ka hadli karaa siyaasadda iyo xaaladda waddanku ku jiro marka waxyaabaha aad is odhan karto dhaliilahaasi way qabtaa oo way qaadan kartaa ma jiraan mise dhammaantood waa eedo aada u malaynaysa inaanay dawladdu shaqo ku lahayn waxway dhaceen oo dee dhibaataa dhacday aan u malaynayo weliba isagu inuu wax ka maleeyey laakiin haddii muxuu ahaaye nabadiiba timid oo halkaa odayaashii weliba de aan ilaado xaggu ka soo jeeday oo ilaa 100 beedi ahaayo iyo dawladdu isu yimaadeen heshiis la kala qaatay labadii beeloode isdilaayo isaga deer isdilaayeen ay amba baxeen hawsheeda annagaa dhamaysanayna gaboose waxaa dan soo hawaa qaaday
markay nabad dadkii wada hadlay waxa uu qorqoray dee waxaan umanayaa inuu isleeyahay hawl kale kacdoon kale samee taas kaa fashilantay